السلام عليكم maanta waxaan ku tusayaa computer Linux lagu soo degsado computer-kaaga sidii filimkii Mr. Robot aad ku arkaysid shaashado kale adigoo khali isticmaalaya USB oo waxba damage gareynayn muxuu ahaa faylasha kugu jira computer-kaaga khaliya si xor ah Linux ugu socodsiisay kadib Linux markaan saaw la soo degno waan qurxin doonaa saas shaashada ku arkaysid marka ugu horeysa waxaad tagaysaa kali.org kadib markaad tagto halka download wada oranaysaa ama get kali ku qoran doona hadhow toolees uu ka duwan yahay in way cajalada laga yaabaa in aanu san kugu soo dhigin ama qaab kale kugu soo dhigo khali waxaad u baahan tahay kali live system ka ay ku qoran tahay ama halka yar marka calaamada yar bracket ka live ay ku qoran tahay meelaha 2 GB ama 3 noqonaysaa waxay ku xidhan tahay tooliska ku jira marka ayagoo laga maarmay kadib waxaad tagaysaa rufus.ie markaad rufus.ie tagtay website-ka waxaad ka arki doontaa halkan cajalada yar baa la soo degaysaa Rufus ka software-ka yar Rufus cajaladiina haddii hore kugu soo degsan tahay Rufus baad hore ka galaysaa midna maanka ku hay USB flash baad u baahan tahay halkaas aad arkaysid USB flash master ku format garanayaa USB gaas oo ku noqon doona hadhow hard disk-ga muxuu ahaa computer-ka aad ka kicin doonto marka Rufus markaad gashid halka waxaad qorki doontaa inuu isla markiiba soo qabtay muxuu ahaa flash-tii laakiin haddii flash kale ku jirto fadlan ka saar si uu taas u soo qabto select taabo markaad halka qaanada select taabatid cajaladii soo select garay markaas oo ka select garaysa halka partition disk-aad ku arkaysid xariifintaas aad kor u qaadaysaa waxay ka dhigantay dhumucda waxay ku noqon doontaa hadda computer-kaaga marka flash disk flash USB flash-ka waa inuu noqdo muxuu 16 ama waxay ka badan inka mid ka badan kasoo laba igu jira laakiin muxuu ahaa adigu waa inaad 16 ugu yaraan aad soo keensataa marka dhumucda badi waxay ka dhigantaa disk-ga hadhow setting markiisan ku dhameystiran yihiin start tab okay khaanad kasta ku soo qoro yes taabo because wuxuu ka baqayaa in computer-ka ama USB-ga aad ku ilowday muxuu ahaa faylalaad muhiim ah midna ha ka baqin computer-kaaga waxa ma yeeli doono process-kani markastoo aad USB-ga gelisid ayuu khaliya Linux ka isticmaali kartaa okay computer-kaaga baqiyo shid BIOS-ka tag USB flash-ka ka dooro halka markuu soo saaro live system persistent ka sii dooro marka inta ka doorto waxa arki doontaa inuu kali soo kacay waad arkaya kali hadda uu soo degay anyway waa kan kali waxaad ku qortaa gmail-ka muxuu ahaa fikrado sweet kali markaad ku qorto halkan waxa ku soo bixi doonta qoraal aan bari hore dhigay boosti anyway linkiga ku sii dhufo linkiga markaad ku dhufto halka waxaad arki doontaa si loo la soo degay sweet kali khaliya setting gali waan qurxin doonaa imika muxuu ahaa kaligeena markaad amarka koobaad gelisay git clone kadib cd ka sweet kali baad gelaysaa markaad inta gelisid sudo bash install.sh baad gelin doontaa marka inta gelisid sample dhan oran doona oo ku soo degay hadda waan qurxin doonaa waxa tagtaa sweet kaligi sawirka ka sii select garayso bgg ay ku qorantay okay khaanada vertical ka dhigo markaad ka dhigatid muxuu ahaa blank horta iconada ka qari computer-ka oo halka setting-ga iconiska ka qarinaysa desktop setting-ga markaad ka qarisid blank horta kali dooro appearance-ka tag kali ka dooro sweet ka sii dooro candy iconiska ka dooro san bisku bedeli doona okay markuu isku bedelo blank ayaad kicin doontaa blank markaad soo kicisi blank hyphen preferences ba qoraysaa doontaa markaad qortid halka ugu sareysa calaamada transparency ka dhigo size-kana dhexda ka dhig size-kana aad u yaree okay application-ada foosha xubno ka hoos qaad kuwii iconadoodu bedelay ku soo korkor